السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتوda salaam ee walaalayaal hadda adigu cusub tahay fadlan YouTube channel ka subscribe ide like asxaabtaadana la sii wadaag hadad fikir iyo su'aal qabtaan insha Allah comment ugu reeb waa aniga guuleeda oo kula rabadaan kariin ilaahay rabadaanteeda caafimaad iyo cimri dheer inuu gaarsiiyo insha Allah maanta waxaan rabaa insha Allah inaan ku sheego siyaabo yar ama talaabooyin aad fudud aad guri ku heli karto haddii aad joogto Jarmalka raantii waxaan la soconaa wadankana ku nool Jarmalka inay aad iyo aad u adag tahay inaad guri hesho oo dad badan ay guri la'aan yihiin oo wadanka waliba iyagu jooga sanado aad u badan okay haddaba waxaa jirta siyaabo aad iyo aad u fudud guri ku heli karto walaalayaal haddii aad tahay qof guri raadisa kow siyaabahan ayaan kugula talin lahaa marka ugu horeysa tukoobaad waxaa jira tukoobaad meel ku qorto fadlan tukoobaad waxaa jira dad waxaa jira farsamo yaqaana oo guryaha dadka u xidhxidha sida dadka jikooyinka xidho kale alaabaha sida TV-da alaabta meesha lagu dhijiyo kale oo dadkaas ayaa walaal waxaa jira xafiis bay leeyihiin xafiiskooda ayaa la tagaa dabeetana qofka maamulka ayaa si wanaagsan oo la hadla la xiriira oo lagu yiraahdo fadlan haddii aad aragto guri laga baxayo ama guri dad cusub ee guri ay soo degayaan fadlan ila soo socodsii marka waxa la sameeyaa dadkaas ayaa la xiriiraa dadkaas guri bay ka soo guureen ama waxay garanayaan dad guri ka soo guureen marka salaam qof guri ka guuro gurigu banaan yahay guriga markuu banaan yahay qofkaasi uu ku xiri karaa wax kooran kara gurigeyga hore aan ka soo guuray waa kaas contactgiisi talabaad inaad la xiriiro dadka guryaha dadka rara waxaa jirta shirkad dadka guryaha u rarta oo waxaa jira oo macal wiish wadata oo alaabta dadka guryaha rarta waxaa la yiraahdaa Umzug ayaa la yiraahdaa shirkadda Umzug firm wax saas la yiraahdaa marka inaad shirkadda xafiiskeeda tagto aad iska diiwaan geliso si shirkadaas ay kula soo socodsiiso guri kasta oo laga guuray ama guri kasta ay rarayaan marka guriga marka laga guuro ama oo la rabo in laga guur rabo shirkadaas ayaa balan dadku ka qabsan si ay u rarto marka fadlan shirkadda u tag balan kala soo qabso ama iska diiwaan geli si markaste ay kula soo xiriidho hadii ay dad fiican yihiin ku soo sheego qoraalsan guri hebel baa laga guuriyaa maalin hebel marka la soco marka aad waxa sameynaysaa gurigii baad imanaysaa dadkii baad la xiriiraysaa si wanaagsan baa laadaysaa dabadeetna waxaad koonaysaa guriga dadka guuraysaa ma guureejin kartaa ama siyaabo kale oo fudud ama shirkadda meel hadli kartaa qodobka saddexaad wuxuu yahay waxaa jira meelo badan oo la isugu yimaado dadka isugu yimaadaan sida meelaha timaha lagu jarto sida meelaha lagu caawiyo kale sida meelaha cuntada lagu cuno kale meelo badan ayaa jira fadlan meelahaas tag dadka warayso una sheeg inaad guri raadis tahay hana ka fadhiisanin salaano kale guri ma raadinaya ama garasa qof guri la raadiya dad badan baa kulay imanaya oo u sheegaysaa lambaraad siinaysaa waxa jira meelaha salaano kale kooflaanka oo kale waxa jira meelo yar warqado yar oo lagu qorto qofku wuxuu doonayo qofku wuxuu baahay marka wala warqadahaas waxaad ku qorataa qof kasto qofka guri raadinaya inaad guri raadinayso deetana gidaarka lagu dhijiyaa deetana hadduu qof guri faraaya hayo kula soo xiriiraya qodobka noqdada afraad oo ah dadka social media badan aad la wadaagto salaano kale social media sida Facebooka Twitterka meelaha aad u badan tahay isticmaasho deetana aad ku qorto inaad guri raadis tahay deetana waxa laga yaabaa in nasiibka qof kamid ah kula soo xiriiro social media waxa kamid oo kale waxa la yiraahdo application kan halkan kugu soo qoriyo kale waxa la eBay Kleinanzeigen waa app badana lagu iibiyo alaabta celiska qayb wuxuu leeyahay shaqooyinka laga daydayo sida kale wuxuu leeyahay qayb isla guryaha lagu kireeyo liftigiis waxa ka helaysaa wax la yiraahdo nakhmiite waxa weeyaan aniga guuleeda ayaa guriga baa rabaa inaan ka baxo laakiin guriga kundugunkaygu ma gelin si degdegan guriga u helay si degdegan rabaa inaan uga baxo dabadeetna gurigan sawiraya qoralkiisa intuu ka kooban yahay dabadeetna waxaan dhigaa eBay Kleinanzeigen dabadeetna waxaan ku qorayaa si degdegan u baxaya ayaa iga kareysanaya kaas ayaa la nakhmiite markaas aad iyo aad ay u fududahay badana nakhmiitaha waa la helaa dad baa si degdeg ah u guuraya marka Charleskaasna 90% uu ku banaayay haddii aad tahay gurays ka kale waxa jira magaalo kasta waxay leedahay wax la yiraahdo immobilian oo ah immobilian makla dad xafiis u furtay inay guryaha kireeyaan okay haddaba waxa sameyntaa sida aad u fudud magaaladiina inta immobilian ku yaala ama inta ku yaala xafiisyo dadka guryaha u kireeya iska soo diiwaan geli
dabadeetana waxaa u sheegtay inaad guri raadis tahay dabadeetana iyagu markaste haddii ay dad fiican iyagu kula soo xidhiinayaan haddii kan la adigu markaste ka wardoon maxaa yeele maalin kaste guryaha lagu soo bandhigaa bannaan oo la kireysanayo marka waxay ku xiran tahay adiga iyo qofka kireeyaha saad u wada xidhiidhaan ama adiga iyo kireeyuhu saad isku fahamtaan ta ugu dambeysa oo ugu muhiimsan oo ah dilaan hore waxaan soo sheegay makla laakiin dilaalkan wuxuu ka duwan yahay dilaalka kale dilaalkan waa dilaal magaaladiisa iskaga jiro xafiis lahayn oo qof ajnabiya oo badan dad juma badna laakiin ajnabi qofku doona noqon karo Arab dadka kale Yurubta bariya adigu ajnabi iska dabeetana lacag la siiyo taasi waxa weeyaan qaybta ugu fudud ee Soomaalidu badana ay ku helaan wax laakiin marar badan dilaalintu waxay noqdaan dad tuuga oo lacag badan ka cuno 1,000 €2,000 dabadeetana aan guri hore kugu soo helin laakiin dad badan ay jiraan ay guriga u soo helaan haddaba maanta waxaan rabaa inaan kuu sheego walaalayaal dilaalkaasi wuxuu ku qabtaa wax adigu saa si weyn maaha inta adigu aad social media ka dadayso muu kula raadinayaa laakiin isagu kaaga daldalool badan yahay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta waxa weeyaan maamooyin ubad haysta oo shaqeynin laakiin guri raba inay ka guuraan taas ayaa dhibka jira tahay laakiin qofku markuu shaqeeyo guri aad iyo aad bay u fududahay inuu helo haddii wala talaabooyinkan 6 ah haddii aad qaado waxay noqonaysaa yacni mid aad ku guuleysato fadlan isku day inaad furfurtaan oo guri raadisaan adigoo talaabooyinkan qaadaya haddii aad fadhido aad tiraahdo guri ma raadiyaa ma noqonayso waxaan ka soo ilaabo waxa jira in magaalooyinka qaar raad house-ka ama magaalada guriga looga taliyo ay ku yeelaan qayb ay dadku qayb ay leedahay guriyo ay leeyihiin magaaladu ama dawladdu oo ku yaala magaalada waxaa laga baxshaa qayb raad house-ka kamid ah fadlan u tag raad house-ka iskana soo diiwaan geli oo u sheeg inaad guri raadis tahay dad badan waxa jira magaalo kale rabay inay u guuraan waxaan ku hayaa qishkii ugu muhiimsan oo inaga Soomaali ahaan kuwan waa tibiska caadiga la raaco kaasoo ah salahaan oo kale haddii on guri aad qof address ku hesho oo kale anigoo guuleedo degan magaalo weyn ayaad address ugu soo qaadatay dabadeetana waan ku soo dhaweeyay guriga ayaan ku keenay marka guriga ku keenay ayaan addresskaagii magaalada ayaad almidin ku sameysay salahaan ka raad hooska sida loo yaqaan almidin bishaanigu ka soo qaadatay marka soo qaadatay ayaad aniga ila degtay markaad aniga aan ku hayay muddo bila adiguna aan dee shaqeynin oo tahay qof hooyo iyo ubad iska haysta aad buu fududahay qofkaas wuxuu tagayaa meesha qofkaas lacag ka qaato social amti ama job center dabadeed wuxuu sheegayaa qofkan addresska uu ku ah inaanu qaadi karin tahay ka badan ee dhibaato kale uu kala kulmay oo markasta problem ku hayo uu rabo in laga raro waa chance ugu fiican aad heli karto dabadeetana social amti ama job center ku adiga way ka qaadeen qofkii dabeetana waxa ku geenayaan meel ku meel gaar ah oo dadka lagu hayo oo guriyaha lagu sugo dabeetana muddo kadib adiga markii guri baa lagu raadinaa meel afka lagu geliyo dabeetana guriga baa lagu helayaa sidaas aad magaalada ku soo degtay waa arinta ugu fudud ee inaga Soomaali ahaan ay sameeyo waana khidad aan dadka kale ogeyn taasi sir hayno ahaato insha Allah haddii aad tahay guri raadis fadlan qof ku deg kadibna haddii aanu guriga hore u heli weedo qofka arintaas sameeyo arintan waa iska secret weeyaan inaga yana dhaafin aad baad u mahadsantiin walaal Ramadaan Kariim fadlan raac talaabooyinkan si aad insha Allah